wafdi oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa maanta wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Joor ee caasimadda Hirshabelle waxaana garoonka diyaaradaha ee Maxamed Dheere Airport ku soo dhaweeyay mas'uuliin ka tirsan baarlamaanka labaad ee Hirshabelle kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha laamaha amniga ururka haweenka degmada Joor iyo bulshada qaybeeda kala duwan ugu horeen waxaa hadal soo dhaweynaa u muujiyay kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xando iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Mahad Xasan Cusmaan maanta waxaan soo dhaweynay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin oo maalmahan ku maqnaa muddo adiga dhowr isbuuc ku maqnaa gobolka Hiiraan inta meesha wuxuu aadan wax kale ma aysan ahayn inuu soo ogaado maadaama maalintii la doortay ilaa hadda oosan meel kale ka sii aadan si uu soo ogaado xaaladaha ka jira Hirshabelle guud ahaan waxaan maanta soo dhaweynaynay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Luqmaan oo baryahan howlo shaqo ugu maqnaay magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow Joor ku soo dhawow caasimadda Hirshabelle ku soo dhawow insha Allah taala waxaan rajaynaynaa howlihii aad soo qabatay u badnaay dib u heshiisiinta iyo xaaladda dhabta ka jirta magaalada Beledweyne inaad runtii macluumaad badan naga siiso ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ka warbixiyay waxyaalihii uu soo qabsoomay intuu ku maqnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barihii la soo dhaafay waxaan ku maqneen howlo shaqo oo aan ku tagnay magaalada Beledweyne waxa igu weheliyay safarkayga ku sameeyaal wasiiro iyo xildhibaano waxaana noogu horeeyay meesha oo noo sii gogol xaaray madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo naga horeeyay dhowr maalmood noona ahaa gogol xaar waxaa ilaahay mahadiis ah bulshada reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne inaan ugu tagnay wanaag uguna soo tagnay wanaag waxaa jiray cabasho yar oo insha Allah waqtigeeda dhamaanayso wax badan anaga hadda ka soo bilownay dhamaystirkeedana insha Allah ay dhamaystiri doonaan golaha fulinta gaar ahaan madaxweynaha oo ku wajahan insha Allah maalmaha soo socdo isagoo halka safarkiisa inta anaga naga dhinaad soo dhamaystiri doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii laga sameeyay magaalada Beledweyne shacabka reer Beledweyne ay sameeyeen iyo sagootintii ay sameeyeen waxa kale oo aan ka mahad celinayaa soo dhaweyntii ay sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Joor sharafta ay qiimaha ay qaayaha leh sida ay soo dhaweeyeen ee kal ilaabka ah waa ka mahad celinayaa Yusni Maxamed Ahmed Bulsha TV Joor hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom